war Soomaalida waliba Etoobiyaanka ama aaminsan Mareykanku inuu faa'iido keenayo raaba mahmahay wuxuu yiri hadii biyo waxtar leeyihiin boodadooda ka muuqan lahayn laana aniga ku dhex jira 24 saac hadii Etoobiyaan iyo gumaysi ay waxtar leeyihiin waxa laga arki lahaa Soomaali galbeed iyo NFD in arinta taayada Soomaaliya in lagu xukumay adduunka ku xukumay danteena ha garanina anagoo inii garanayno hadad garataan oo ku leeynayna taas inay tahay maanta laana sabab markay baabaa'isay cid u hadlaysa male marka damcayna dadkii baabina iska qabtaana waatan wax ayaga loogu daray karba دستور أيو إلهي دجية قرآن كوكو دجية محمد سنة دي ساعة تعالى صلى الله عليه وسلم دستور كس أيو حالة سمي صدرا سماعي هذا أكتر مقدشة لح بلاد أيو شقينا أي إثيوبيا أي تعمير كل مادة do you believe إنه دستور كاس وقلدنا إيمان وحنقولك اللون كله ودقيس شيء أوه هي الدين سووا إنه الدستور ما هو الكتاب كتاب واحد أبيك إلهي كتاب حليمة laba jeer bad magacayga qaladeen magacayga waa Aasha Aftar Qaasim dawladda ma difaacayo waxaan difaacayaa dastuurka Ethiopia iyo kuwa hadda u sacabilay Ethiopia qabiil dartiis weey kuwa diidan waxay u dhowdahay inkastoo ay ku gaban karaan hadda qowmiyanimo darteed ama diin darteed aniguna waxaan labadoodaba waxa ka sii xoog badan qabiil problem soo ku jira macnaha waxaan u fahmay dadka reer Muqdisho ee deegaanka degan inay dadka problem ku jiraan waxa soo baxday marka kadib markii la ogaado warlooradii iyo problemada inay xamar yihiin dadku way iskilin gareeyeen dan marka waxa soo baxay haday iskilin gareeyeen hadana al-qaacida lagu level gareeyay mid baa dhul laga haystaa mid baa beer laga haystaa mid baa dhulkii u naxariisanayeen inuu gubahaya mid baa naag iska meel alaab la fadhida dilaha Mareykanka kuwaas buu la mid yahay baan qabaa khaladaadka loo geysto ummadda Soomaalida Mareykanka iyo inta la midka ah wadanka hadda joogta ay Soomaalinimada sheeganaysa ummadda wax u naxariista ma jirto ilamana aha siyaasadda Mareykan uu isaga buna cadeeyay mowqifka Mareykan uu ka leeyahay Africa not only Somalia wuxuu cadeeyay Mareykan in danaha ugaarka Mareykan qolo kasto isku dayda si argagixisnimo inay uga hortimaado in ay meeshay joogaan ay ugu tagayaan waxaana ka ogoltaa عشان كان دحجر waxa weeye Mareykanku wuxuu leeyahay argagixisa joogta Soomaaliya niman ma garanaysaa oo tirinaya magacyadoodii waxay u taagan yihiin dawlad markaasi ka qabata ama cid kale wadankii xukunta oo dacwo saari karta sida daradeed ba keenaysa in uu gacantiisa ula tago oo isagu xoga qabta meenayn waa mid aan annaga soo waday weeye marka ay Soomaali hesho waxa Soomaali keenay inay iyadu isdisho dawlad la'aan in Mareykan uu soo duulo oo Soomaaliya gudaheeda gataalo ku dhuftana dawlad la'aan baa keentay in xeebta Soomaaliya dad laga Faransiiska uu ka qaatana dawlad la'aan baa keentay laakiin anigu hadda uma arko wax zaa'id ah Mareykanka iyo Faransiiska lagu sameeyeen ngaar u saarahayo ma jirto amxaara weligeedna ma imaateen haddana shacabka Soomaali diyaar ka dhigin environmentkii iyo sida ay ayaga casumay inay yimaadaan waxaana keenaya waxa weeye dawlad la'aanta ka jirta wadanka Soomaaliya dawlad waa ka jirta waxa weeye dawladan hadda jirta waxay ila tahay intii waxay ka soo dambeysay dawladda iska may dhalanin 14 miitin oo intaas oo adduunka kamidana ay lacag iyo aqli iyo waqtiba geliyeen bay ka soo baxday constitution-ka maanta jirana waxaan isleeyahay waa midka kaliya isu keenay ogolaaday dad iska soo horjeeday waan ognahay warlords baa jiray laakiin part of ayagoo meeshii kulankii Soomaaliya jooga ayaga ka soo baxay bilowga jiraan leeyahay kursadaxda ku soo noqdo Mareykanka wadankan aan joogno qofku dambi ma laha ilaa la xaqiijiyo Mareykanku nimankan waxa weeyaan uu islaamiyiinta ku sheego wuxuu ku sheegaa inay dambilayaan iyagoon maxkamad la saarin iyagoon cid dambi ku qirin in gacanta Mareykanku oo la tago waliba uu qaarkood laayo yani xeerarka iyo dhaqanka Mareykanka baxsanay way tahay kowde anu waxaan qabaa horta doodeenu inay isku xidhnaato laakiin in laba la kala saaro siyaasadda daakhiliga ee wadanka gudihiisa ka dhacaysa ee imika la taagan waxay tahay waa su'aal gooniya dawladaha dibadduna waxa ay ka rabaan Soomaalida iyo sida ay ula macaamilayaan waa su'aal gooniya labaduna way isku xidhan yihiin anu walaashiiseen kuma waafaqsani inuu bilow jiro anu waxaan qabaa dawladda maanta kumeel gaarka ee Soomaaliya lagu tirinayo inay tahay dawladda Ethiopia to ay dhalisay
oo ay abuurtay oo ay dusha ka saartay dadka Soomaalida oo xitaa ciidamadeeda 20,000 Ethiopia ciidamadu intay soo galeen ay ku khasbayaan dadka Soomaalida inay ogolaadaan dawlad Ethiopia ay ku soo dhistay Kenya soo damaadgar marka aanu ma ogoli doodeedu ma ogola inuu bilow jiro meesha soo damaadgar taas waynu u galeynaa dawladda waynu u galitaa laakiin khasaaraha Mareykanku uu Soomaaliya u keenay sida hore baan aanu sheegay sanqashada hore waxa keentay dawladda Ethiopia soo damaadgar Ethiopia ayaa keentay tuhumka inay jiraan dad Soomaaliya oo diin islaama sheeganaya oo qoriyasita oo doonaya inay Ethiopia soo galaan oo Ethiopia burburiyaan ay dood horaan soo damaadgar Mareykanka la fahantiisii oo isaguna walaac weyn ka qaba dadkan argagixisada ay isku sheegeen islaamka yihiin ee bini'aadan iyo wax la mid ah ay ku jiraan argagixisada aad iyo aad tuhunka weyn iyo baqdinta weyn uga qabay iyo dawladda Ethiopia danteedii siyaasadeed ee geeska Afrika Soomaaliya arinteeda ku xidhnay labadiiba sidaa la isku xidhay marka Mareykanka iyo dawladda Ethiopia meel bay ka soo wada jeesteen Soomaalidana cid lay taagan soo damaadgar marka Mareykanku distorkiisa iyo xuquuqda bini'aadamka iyo qof dambi lagu qabtay in maxkamad la soo taago oo sida wadankan looga dhaqmo waxaad moodataa in la iska iloobay oo dadka Soomaalida iyo wadamada dibadda ee la dhaqmayo ee siyaasadda la isku diidan yahay in distor iyo xuquuqda bini'aadamka iyo waxaas ay banaanka la iska dhigay oo marka quwwada ka weyn la geeyo la burburiyo dhuusa mareebta ka dhacdayna taasi bay marka mid ka baxsan baad leedahay xeerarkii iyo dastuurkii iyo dhaqankii Mareykanka ha dawladda Mareykanka madaxweynaha George Bush waa kii ku dhawaaqay bari hore war on terror ya dagaalka argagixisada lagu hayaa waxa weeyi rasaastay wataan tu ka weyn in laga horgeeyo halkay galaan in laga tabatagol lagu laayo taa way siyaasadu Soomaal garan marka siyaasadda adduunyadu waa siyaasad waa kubaddo kale soo garanay waa ina team la timaada xirfadeedii yaqaan hadii aanada qoonse ma cidlun baa laga heli waana laga quwad weyn meel ka baxaysa ma jiro mudan Cabdirasaaq marka hadii Mareykankii sidaa uu dhaqmayo wadankii la leeyahay waxa jooga kooxaha argagixisaha dawladdii ay leedahay Etoobiyaanka iyo cid kasta oo wadankii timid annaga ayaa ruqsad siinay oo magaca dawladda aan ku sameynay kooxii magaranaysa islaamiyiinta waa naga soo horjeedaan eedayaad saaraysa marka dhinac kasta aad fiiriso anigu eedda wallahi waxaan saarayaa dhinac kasta eedda waa leeyahay dawladdan hadda Soomaalida oo meesha jirta waxaa loogu yahay nufuud weyn inay lahayn maxaa jira ma haysato aaladii ay nufuud ku yeelan lahayd kalsooni dadka ciidan ku filan oo Soomaaliyeed hub ku filan oo Soomaaliya ay leedahay lacag ku filan oo iyadoo wax ku maamusho marka wixii ay ku taagan tahay oo dhan waxa weeye wax dibadda hadday lacag tahay hadday awood kala tahay dibadda iyo asaas loo hayaa sida qof dhaxayo kala dhaqan marka eed weyn oo ay leeyihiin iyo wax xil oo loo qabi karo ayuu ay leeyihiin ma jira nasiib xumo magacuun bay wataan dawladda Soomaaliyeed ayagoo waxba jirin waa midda hadda Ameerikaanku ku weerarayo uu leeyahay inaanu sabreen wixii ka dhacay inaan samayno dawladda Soomaaliya loo ruqsaysay argagixiso Soomaaliya hadday joogto inaan la dhigo sida darteed marka eedda anu waxaan leeyahay kullu waa qarbiguna waa leeyahay Soomaalida inteeda weyn marka waxaad leedahay ciidamada Ethiopia dagaal bay ku jiraan dagaalka dad baa ku dhimanaya sidaas sheegayso Mareykanku duqeyntaas uu sameynaya hadii dawladdii awood ay lahayn laakiin magaceeda baa la isticmaalaya taas eed ma ku yeelanaysa marka waa ku leedahay eed bay ku leedahay magaceeda ma ogtay lagu dhaqmaayo laakiin hadda sidaas iyagu rabaan inay dantooda ka shaqaysanayo weey oo rabaan inay mujiraan oo magac minister dawlad baa jirta la yiraahdo dan Soomaaliyeed meesha ku jirto qarbi iyo wixii la jiraan dantooda ay wataan dantoodana waxay ku jirtaa kuwaan iyaga waxba ku diidayeen ayay dantooda ku jirtaa inay taageeraan markaas sida uu dhigay waxaad moodaa inay tahay dawladdu dib mooyana faa'iideyna markaas ay ka soo soconaa caasha saas u faraxsan tahay ها هرت مركه هريسة waxaan moodaa wiilasha inay gabdhaha wiilasha yani interview gareyn laba jeer bad magacayga qaladeen magacayga waa Aasha Abtar Qaasim marka walaalkay Axmed aragtidiisa ah in maaragtay ay igu diidan yahay in meeshii ay dawlad ayna jirin anigu dawladda ma difaacayo waxaan difaacayaa dastuurka
dastuurkana Soomaali baa dhigtay ma maqal dastuurka inay soo sameeyeen ma tagi shirkii laakiin waxaan ogahay in dastuurka Soomaali ay dhigtay waa dhici kartaa individuals dawladda ku jira in ay Etoobiyaanka ama ay recommend gareeyeen ama ay u tureen waa dhici kartaa oo siyaasad bay ahayd laakiin anigu waxaan ilaalinayaa aan dhowrayaa aan rabaa in la xoojiyo waa dastuurka Soomaali isku raacday markuu kaasi nabad yahay in annagoo dhan isku raacno ilaalino wuxuu noqonayaa dastuurka mid kala saara kuwan hadda dawladda sheeganaya jooga haday daliil leeyihiin dastuurka kala saari lahaa waa in annaga aan support gareyno laakiin asha dastuurkii ma kala maqnaan karayaan dawladnimadii dastuurkii dawladdu u baahan yahay wado socodsiiso meel maraysa hadayna dawladdii meel mari karin waraaqo Soomaaliya waa saas weeye laakiin waa intii hadda isqadintay meesha waqti badan ku lumisay ee joogtay dastuurka israacisay un ba haddana madax ka oo meeshii u joogta laakiin waa loo baahan yahay